nin taajir ahaa ayaa guursaday gabar akhlaaqdeeda iyo nasabkeeda u jeclaystay waxa ayna nolol qurux badan isla soo qaateen wax ka badan 5 sano muddada kadib waxa ay ka dalbatay inuu u furo ciwaan Facebook si ay wax ugu barato baraha internetka ee bulshada ay ku kulmaan waa ku aqbalay dalabkeedii waxa uuna Facebook ugu furay ciwaan ayada ay leedahay ka oo markuu guriga ka maqan yahay uu kala soo xiriirayay laga soo bilaabo xilligaasi waxa ay bilowday in ay salaadaha ka tagaano sidoo kalena ay ka tagto adkaarihii ay aqrisi jirtay iyo howlaheedii kale ee guriga waxa ayna waqtigeed ugu badan gelisay isticmaalka Facebook iyo baraha kale ee internetka maalin maalmaha ka mid ah ayaa telefoonkeeda oo furno online ah ayay ka tagtay waxa ayna gashay jikada ninkeedii ayaa soo qabtay telefoonka waxa uuna si kiisa ku arkay wada sheekaysi ku dhaxmaray xaaskiisa iyo nin ay hore isu jeclaayeen ka oo waqti hore ay jaamacadda isla dhigi jireen isla markaana ay jecleed in uu noqdo ninkeeda laakiin nasiibkeeda ayaa noqday ninkani hadda qabo ka oo ay ku qasbeen guurkiisa labadeeda waalid waxay u sheegtay ninkeeda in uu waqti ku filan siinin waqtigiisa ugu badan uu ku maqan yahay suuqa kadib markii uu ogaaday zawjkii in xaaskiisa ay kala sheekaysato Facebook saaxiibkeedii hore waxa uu ku yiri Allah wax badan ayuu ceebahaaga ku qariyay waxa ayna ahayd in aad ka xishooto ficilada noocan ah hadii aad ahaan lahayd mid salaadaheeda xifdido waxa ku gali lahaa xishood sababtoo ah waxaad alla hortiisa istaagaysaa maalinkii 5 mar waadna ka xishoon lahayd ficilada noocan ah oo kale mana ahaateen mid caadaysata sameynta ficilada macaasida ah alle waa kii in badan ku qariyay ceebahaaga zawjkii waxa uu qaatay waxa ay sameysay xaaskiisa qiyaano asaga ay qiyantay iyadoo aysan marnaba banaaneen sharci ahaan wada sheekaysiga dadka ajnabiga kala ah wada sheekaysiga Facebook gabadha la qaba ay la sameeyso nin ajnabi ka ahna waa mid macaasi ku ah gabadha oo sharciga aanan marnaba u ogolaanaynin in ay sameyso waxa ayna ahayd in Allah ay ka baqdo ka oo arkaya markasta waxa ay sameynaydo ka awaalmarinayana naf kasta waxa ay kasbato halkii ayuu ku siiyay warqadeedii furiinka iyadoo uu haysay wiil waa uuna ka reebtay wiilkiisii imise ayaa xiriirkoodii ku burburay sidaani imise qoys ayaa u burburay sabab la xiriira khiyaanooyinka ka socda baraha kala duwan ee internetka waana sababta ugu weyn oo maanta caalamka ugu soo batay furiinka waa walaalkiin Abshir Baari oo idin soo turjumay qisadani idinla socodsiinayay fadlan haddii aad nala soo gaartay gabagabada muuqaalka laag inoo saar siina sheer garay